waa la aasay oo 9 bilood iyo 4 habeen baa imika kasoo wareegay waqtiga la aasay 9 bilood iyo 4 habeen baa kasoo wareegay xalmayna meel inta xaqa soo baxay dariiqa aymayna meel soo daba yaacay ilka casba yiraahdeen markaan u qaado dhag u taantaagay ma garanaysa maydama arkay baan daba carar Cabdirasaaq waa haabigu yiri markii walaal leedku yiri boolid baa jiiday ee cusbitaalka tagteen ee leedin cadeeyay in xaga lagu aasay waxa lagu aasay xabaalaha ay xaleeya qaar baa madaxii xanuunay qaar baa caadi ah qaar baa farxad ku dhacay qaar baa naxdin ku dhacday qaadan waa bay arintu waqtigii de xaqiisaba la qaadan lahaa waxa ka hadhay 3 cisho wali xaqiisa marka lama qaadan wali xaqiisa laakiin waxay reerku bixiyeen xabaalo qodki halkani waa xaafadda State House ee magaalada Hargeysa waxa ka taagan sheeko la yaab leh oo dadka qaarkii u qaada waa iyo fajax ku noqotay sheekadan ka hadlaynaa waa sheekada Cabdirasaaq Ilkacsi oo 9 bilood iyo 4 casho ka hor lagu aasay xabaalaha haleeya ee magaalada Hargeysa kaasi oo say qoyskiisii sheegeen uu gaari booyadii jiiday isla markaasina laga heshiiyay diyadiisii loona balansanaa in 3 casho kadib diyadiisii ama magtiisiba la kala qaato xalay ayaa goor habeenimo Cabdirasaaq halkan yimi oo xaafadooda yimi arintaasi ayaa waxay fajax iyo ama ka ku noqotay qoyskii iyo sidoo kale dadyowga kala duwan ee xaafadani ku nool haddaba sheekadan iyo siday u dhacday balayaan ka wareysan doonaa qoyska waxaana barbarkayga taagan Ruweyda oo kamid ah qoyska Cabdirasaaq in walaal soo dhawow waan dhawahay walaal magacaaga igu bilow magacayga walaal Ruweyda Yaasin Ismaaciil baa la yiraahdaa in Cabdirasaaq mawlaalaati walaal miya waxa weeyaan ahay dumaashidii baa tahay bal sheekada Cabdirasaaq nooga waran walaal sheekada Cabdirasaaq kolkii hore wan weynay nin xanuunsanay magaalada Hargeysa dhinac kaga jiro buu ahaa in wax naloo soo sheegay booyadii haleeya ku jiiday kadibna sidan saa u qabnayna booyadii haleeya ku jiiday in dhakhtarka weyn baan tagnay waxaan sheegnay calaamaduhu inankaygu qabay calaamadii baa nalooga baadho dhakhtarku ka baadhay waa laga helay kadib marxuumkii Ilaahay u naxariistay saasaan ku aasanay oo inankayga u qabnay waa la aasay oo 9 bilood iyo 4 habeen baa imika kasoo wareegay waqtiga la aasay 9 bilood iyo 4 habeen baa kasoo wareegay inankan u qabnay inankayagii oo dhakhtarkii sharcigu cadeeyay inuu inankaygi yahay in xalay 9:40 mirar baa State House uu soo dhex maray in yaro State House ku dhashay buu ahaa wax ku bartay Ilaahay miyirkiisa iyo maankiisa ka qaaday kolkii dambe cid wali garanayso kiyo halkaas soo socdaba dadku qaylinayaan baa la igu Ruweyda ilka saaxiibaashi ka soo baxay naxdin ka xuno ka argagax ka badan ma jirto cashan karinay daban dul fadhiyo waan ku dul dhacayba gabadh bay dul fadhido way iga qabato xagaas oo kale istaagay ilaa xalay ilaa saaka gurigayga wallahi jaam waxa jaam gareey marka dadka jaam gareeyay naxdin ka xun ma jirta qofkiini oo dad ku ogeyd inuu dhintay oo qof kale u eegan oo aasanay kadibna soo baxay naxdin iyo farxad labadaba waa loo dhintaa wada ogtahay marka dadkan dad naxsan kuna faraxsan daraadood baa jaam gareeyay xaafadii oo cid walba leh xitaa rag kale madaxa isteeba jooga ayaa noo yimi qof walba qisada waxay ku noqotay argagax iyo yaab ay ku noqotay adigu markii uu horeysay indhaha ka qaatay qof ugu horeeyay xaafadda reerkiisa kamid oo arkina ana ugu horeeyay sidaan noqotay marka wadisoonan ku rid naxdin daraadeed dabkii baaban ku dul dhacayba markan arkay xitaa calaamad kale uu lahaayo shaar garan casbuux xidhnaayo suwaal madow waa qof xanuunsanaya meel dhiiriya ayuu dhex gelgelimaystay anu qiyaasaan saan u qaatay gabigiisba isagoo wada dhiiriya buu yimi oo dhiirigii dama soo socdo ma soo lugeynaya dhiirigii baa walaal ku qalalay dadku saa daraadeed bay uga soo bixinayeen ay lahaayeen wuxuu ka soo baxay qabrigii xabaal buu ka soo baxo dhiiri buu lahaayo qaar baa lahaad kafanti baa abu xidhnaaba halkan noogu yimi kullidu waa qof xanuunsanaya ima wareysateen waxa ku 9 bilood ku maqnaa waan wareysanay anaga fajac nagu taho inankayagii isagoo ahoon arkayno calaamadihii awalba aanu sheegnay dad sharciga u sheegnay ka baadhnay oo eegno iska hubinay imkadan laftirkiisa hooyana iyo walaaliyo eheltoona ilmihiisu kama khaldamo oon eegnay ayaan weydiinay waxaan ku niri maxaa walaaliin xagaad ku noolayd wuxuu sheegay inuu berbera joogay ina ciidan baa dadkii waa la magaalada malaaqa qabtay sidoo uu sheegay meel baan ku xidhnaa buu yiri
markii walaal laydinku yidhi booyad baa jiidhay ee cusbitaalka aad tagteen ee laydin caddeeyey in xagga lagu aasay waxaa lagu aasay xabaalaha xalleeya gaarigii jiidhay ma la qabtay mise u baxsaday may waa la qabtay shaqadaa waxaa qabsatay taraafikada in soo qaaday meydka tallaagada gelisay soo baahisada facebook iyo dhulalkaas markaad jiidhay maadaamaad inankiinu qabteen ma la heshiiseen idigu qoysahan markii hore haa waa lala heshiiyey waqtigii dee xaqiisaba la qaadan lahaa waxaa ka hadhay 3 cisho weli xaqiisa markaa lama qaadanin weli xaqiisa laakiin waxay reerku bixiyeen xabaalo qodki goormaa loo balansanaa inay balansanaa 2 oo 3 cisho naga xigto 3 cisho ka hor buu markaa imika inanka yimi annagoo kuna faraxsan naxdinna ay tahay oo adiguba dareemi karaysid bal imika xaalkiisa caafimaad weynagana waynu galnay oo waa xanuunsanaya bal dadka uga warbixi wallaahi xaalkiisa caafimaad way adag yihiin hadda wuu xanuunsanayaa matag buu wadaa dee ummadda islaamka muxsiniinta meel kastay ku nool yihiinba walaalkooda muslimka inay dee wixii ay tari karayaan weliba hooy ahaan iyo hadday tahay goob caafimaad ama goob dadka xanuunsanaya la geeyo lagu dhaqaaleeyo inay u soo gargaaraan walaa ilaahay baa horta wax gargaara kanana qaadi karaya ruweyday haddii imika dad badan oo muxsiniina oo wanaagga jeceli ay daawadaan oo yidhaahdaan walaalkaa dhibaataysan ee xanuunsan ee muddada rafaadsanaa waanu caawinaynaa lambar laydinkala soo xidhiiri karo ama wax loogu soo diri karo ma haysaa haa walaa waan leenahay inkastoo walaahi habeen horuu tug noo soo dhaco moobilkan whatsappka ka isticmaalayay u qaatay garanaysaa laakiin waana haysanaa bal u sheeg dadka haa lambar haddii lagala soo xidhiiri karo 4039576 ku celi 4039576 maxaa soo baxay magaca aamina yaasin ismaaciil daawadayaal barbarkayga waxaa taagan Safiya Nuur waa shakhsigii ugu horeeyay ee Cabdirasaaq indhaha ka qaada maama soo dhow waan dhaway maama bal xalay iyo wuxuu dhaceen maama inanka waan laayana waxaan la guur dhinto dhimashaan ku tirinaynaa waan naxnay ama waan aan filanayba xalay bayna meel inta xaqa soo baxay dariiqa ama meel soo daba yaacay ilka casba yiraahdeen markaan u qaado dhag u taagay ma garanaysa maydama arkay baan daba cararay Cabdirasaaq waa haabigu yiri waa soo kaxeeyay xaafadan kan maxaad ku aqoonsan Cabdirasaaq waxaan ku aqoonsan arkay bade ina meeriyeen Cabdirasaaq ma lahaayeen anoo hubsareeyay Cabdirasaaq waa hooyo ilka casba meel ilka casba la armay Cabdirasaaq ana dawa waxa lahaayeen ilka casba waxaan ku Cabdirasaaq waa haabigu yiri ina maraan ku leedo gurigan keenay markii adigu aad aragtay maadaama oo 9 bilood ka hor la aasay oo aad geeri ku ogeydeen maxaa dareenkiina iska bedelay adiga shakhsiyan waxa weey wallahi hooyo aan ka xanuunsanay shuban baa igu dhacay madax xanuun dawaan xay u qaadaway kugu wallahi bilak u qaadaway ugu noqotay bal xaafadda iyo dadka xaafaddu sida arintan iyagu laftoodu arintan kaliis ugu noqotay wallahi lamidun bay haayeen waan naxnay dawaan u qaadan ba weyn Cabdirasaaq maadaama leeyahay qofkii hore la aasina wuu yakaa isaga ma hubsan inuu Cabdirasaaq laftiisa yahay haa marka sawir ka xalayba Cabdirasaaq baaba waan garanaya marka waan garsin Cabdirasaaq waa isagii maxamed bal xalay tolaysi wuxuu dhacay noga waran si hadda wuxuu dhacay xalay uu la soo hormaray dabtay ilka casoo ma muusan lagu uu markii dib loo qaado way markii hore waxa waa la aslika markii dib waxa waa ilka casii laftiisiiba waa loo qaado way idinku qaado waa ku noqotay aniga qodob ay loo markii dambe aad aqoonsanteen inuu ilka casii yahay idinka iyo dhalinyaradii kale meesha joogay bal dareen maxay iska bedel dareenkiina dareenka wax farbado ba iska bedelay itidii taqaalisaga wax bad ba iska bedelay qaar ba madaxii xanuunay qaar ba caadi ah qaar ba farxad ku dhacay qaar ba naxdin ku dhacday qaado waa arintu waa maxamed andar MMTV Hargeysa caana xilwa cab oo carruurtaada